Halkani waa Gaacar Media Tube. Dhagaystayaasheena iyo daawadayaasheena sharafta mudan ku soo dhawaada barnaamijka wixii cusub ee Gaacar Media Tube. Barnaamijka wixii cusub ee Gaacar Media Tube waxaan idinkugu soo gudbin doonaa arrimaha bulshada, gaar ahaan hooyo Hindi ah iyadoo caga maran ilmaheeda yar ka badbaadisay shabeel. Hooyadani Hindida ah inkastoo uu dhaawac soo gaaray, haddana cunugeeda halka sano iyo 3 bilood jira ayay ka badbaadisay shabeel si uusan u cunin. Dhagaystayaasheena iyo daawadayaasheena sharafta mudan, inta aanan u gadagalin faahfaahinta warbixintaas, waxaan idinka codsanaynaa inaad subscribe iyo follow dhaadaan page-ka iyo channel-ka Gaacar Media Tube. intiinii hore noogu soo birtay subscribe-ka noo saartay iyo follow dhahday waad mahadsantihiin. intiina kalena waxaan idinka codsanaynaa inaad subscribe iyo follow dhaadaan page-ka Gaacar Media Tube iyo channel-ka Gaacar Media Tube ee YouTube iyo Facebook aan ku kala leenahay. Mahadsanidin. Aan ku bilowno. Inkastoo la yiraahdo hooyo wax walba waxay ka jeceshahay ilmaheeda, haddana hooyadani Hindida u dhalatay waxay xaqiijisay jaceylka ilmaheeda ay u qabto iyadoo shabeel la dagaalantay. Hooyadani Hindida waxaa la yiraahdaa Archana Choudhary, da'deeda waa 25 jir, waxay ku nooshahay aagga Hindiya ka tirsan ee la yiraahdo Madhya Pradesh. Hooyadani si ay u badbaadiso ilmaheeda yar ee jira 1 sano iyo 3 bilood iyadoo caga maran ayay weerartay shabeel. Haddaba arrinkani ayaa isha caalamka soo jiitay. Arrinta ayaa u dhacday sida tan. Dhacdada ayaa dhacday toddobaadkii tagay maalintii Axadda. Waxaa wada socday hooyadan iyo ilmaheeda yaraa ayagoo marayay meel duur ah oo kayn jaq ah oo u dhow aagga ay ku nool yihiin. Kadibna shabeel ku dhuumanayay goobta ay maraysay. Hooyadani ayaa intuu soo booday oo dafay ilmaheegii yaraa ee sanadka iyo 3 bilood jiray. Shabeelkii ilmihii wuu la cararay asagoo dhulka ku jiidaya ilmihii yaraa. Haddaba hooyadani iyadoo aan iskala garanaynin waa Archana Choudhary oo caga maran ayaa ka daba orday shabeelkii oo ay dagaal la gashay. Inkastoo hooyadani dhalinyarada uu dhaawac culus ka soo gaaray gacmaha, dhabarka iyo bowdada, ayaa haddana waxay ku guuleysatay inay soo badbaadiso ilmaheeda yar. Hooyo Archana Choudhary xilliga ay shabeelka la dagaalamaysay, dhawaaqeeda dadka deegaanka oo maqlay ayaa soo gaaray goobta ayagoo watay ula kuna eriyay shabeelkii, sida xogta lagu daabacay dagalka ama website-ka Audit Central. Hooyadani iyo ilmaheeda yaraa ayaa loo qaaday goob caafimaad oo deegaankooda ku taala, taasoo la sheegayo ilaa hadda in goobta lagu dabiibayo. Dad badan ayaa ammaan kala dul dhacay hooyadani 25 jirka ah Archana Choudhary ayagoo leh waxay xaqiijisay oo ay rumaysay weedha hooyo wax walba waxay ka jeceshahay ilmaheeda. Runtii qisadan runta ah ee Archana Choudhary waa mid cibro qaadasho ugu filan qof walba. Ilaahay hooyooyinkeena noo barakay. Dhagaystayaasheena iyo daawadayaasheena sharafta mudan, waxaa intaa inooga eg barnaamijka wixii cusub ee Gaacar Media Tube. Barnaamijka wixii cusub ee Gaacar Media Tube kan xiga intaan ku kulmi doono nabadiino.